بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله حمد عباده الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم عليه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan walaalyaal kusoo gudbin doonaa insha Allah qisasul anbiya, qiso kamid ah qisooyinkii nebiyadii. waa qisadii nebi Ibrahim Khaliilur Rahmaan. haddii aynu bilowno qisada nebi Ibrahim, nebi Ibrahim naxariistii nabadgelyo korkiisa haatee waxa uu ku dhashay dhulka Baabil, waa wadankan Ciraaq iminka loo yaqaan. inkastoo la soo wariyo inuu ku dhashay magaalada Dimashq ee wadanka Syria, haddana waxa sax u dhow oo xoog badan inuu ku noolaa kuna barbaaray dhulka Baabil. nebi Ibrahim naxariistii nabadgelyo korkiisa haatee waxaa la dhashay Haaraan oo walaalkiis ah. isna waxa uu dhalay Luut oo isna noqon doona insha Allah tacaala nebi kamid ah nebiyadii uu Eebba soo diray. marka nebi Luut iyo nebi Ibrahim waxay isu noqonayaan adeer. nebi Ibrahim calayhi salaam qoomkiisii waxay caabudi jireen sanamyo, tamaasiil. gaar ahaan waxay aada u caabudi jireen meerayaasha ama kawaakibta, xidigaha, dayaxa, qoraxda iyo wixii la mid ah. waxay ahaayeen qoom wathaniyiina. kadibna waxa uu Eebba u soo diray nebi uu aada u jecel yahay, agtiisana aada looga jecel yahay. waxaana uu Eebba ka dhigay Khaliilur Rahmaan. macnaha khaliil waxa weeye ruux aada ugu dhow Eebbe. nebigaasi waa nebi Ibrahim calayhi salaam. nebi Ibrahim isagoo ay daadiisu aada u yar tahay, raalli kamuusan noqon waxay qoomkiisu Eebbe la wadaajinayaan ee shirkiga ah iyo tamaasiisha iyo sanamyada ay caabudayaan. walidaalika buu Eebbaha Raxmaanka uu qur-aankiisa ku leeyahay: walaqad aataynaa Ibraahiima rushdahu min qablu wakunnaa bihi caalimiin. dhab ahaan waxaan siinay nebi Ibrahim hanuunkiisa goor hore. nebi Ibrahim calayhi salaam isagoo daadiisu ay yar tahay wuxuu dacwadda uu ku bilaabay aabbihii oo ahaa ruuxii ugu dhowaa, isagoo adeegsanaya akhlaaq iyo usluub ay ku dhahan tahay xushmad iyo kala dambeyn iyo ixtiraam. في سورة مريم وهو أبك ورميديا قصة النبي إبراهيم، ويقول الحق سبحانه وتعالى: إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. وحد حسن النبي محمد مركو إبراهيم كيري أبيس أبو محد عابدي وحن وحب مقلين وحنا أركين وحنا كوترين. يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. أبو أنيق وحا مد علمي أنا ديقكو إيمان إراع عنكو هنونيو شدك توساني. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. أبو عابد شيطانك وحو ويهي إبها الرحمن كأه روح عاسي. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. أبو وحن كعب سنيا إنو كتاب تعذاب كإبها الرحمن كأه أود أنقط الشيطان كقرابه يولي. قال راغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا. waxau yidhi aabihiis: ma waxaad nici adigu ilaahyadayada iyo sanamyadayada Ibraahimow, haddaanad joojin dacwadda aad wadid waan ku dhagxin, waan ku dili, waana dayra ayaad iga tahay agtayda. qaala salaamun calayk
سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وحاول النبتقل يكورك هاهات وانكودن بداف ورسن إبهينا وإبه نحرس بدنه. نبي إبراهيم عليه السلام وهو أديك سيدي أسلوب يا أخلاق عادو دبعسن هساءهات بهيس أو قال نمكو فقاتي وكدق أضيقي وانا ديري نبي إبراهيم عليه السلام. نبي إبراهيم عليه السلام isagoo aad u da'yar ay wuxuu dareemeen qoomkiisu aanay jidka ku toosnayn. maalin maalmaha ka mid ah waxa uu la kulmay qoomkiisii oo u sujuudsan sanamyadii. kadibna waxa uu weydiiyey, waa maxay tamaasiishan aad u sujuudsan tihiin? waxay qoomkiisii ugu jawaabeen oo dhaheen, dhaxal baan u helnay aabbayaashii ayaa sidan samayn jiray oo caabudi jiray sanamyadan. nebi ibraahim isagoo aad u dhiiran ayuu ku yidhi, idinka iyo aabbayaashiinba waxaad ku sugan tihiin baadi iyo khasaare aad u cad. waxay ku dhaheen, ibraahimow ma xaq baad noola timi mise waad iska cayaari? waxuu ku yidhi, eebbihiin waa rabbiga samooyinka iyo dhulkaba, aniguna waxaan ka ahay shaahid markhaatibanka ah. nebi ibraahim waxa uu ballan qaaday in uu burburin doono oo wacd uu ku maray sanamyada ay qoomkiisu caabudayaan. maalin maalmaha ka mid ah ayaa qoomkiisu u baxeen fasax ama maalin ciida iyo maharajaan si ay u dabaaldegaan. waxayna ka tageen sanamyadoodii oo aan cid ilaalisa lahayn. nebi ibraahim calayhi salaam waxau ku hadhay magaalada. kadibna waxa uu u tegay sanamyadii waxaanu weydiiyey inay cunaan cuntada iyo khudaarta la hordhigay. sanamyadii wax falcelin ah maysan samaynin, cuntadii hortaallana maysan cunin. markaasuu nebi ibraahim calayhi salaam waxau soo qaatay faash ama gudin ama aalad wax burburisa. kadibna wuxuu ku burburiyey sanamyadii oo dhan marka laga reebo sanamkii ugu weynaa. kadibna faashtii ayuu qoorta u suray. qoomkiisii oo markay soo noqdeen ayay la kulmeen mucjisadan. waxayna isweydiiyeen in lagu soo duulay iyo in kale, balse markiiba koox qoomkiisa ka tirsan ayaa tidhi, waxaan maqalnay wiil yar oo ceebeeya sanamyadeenna, waxaana la dhahay ibraahim. kadibna waa lasoo qabtay nebi ibraahim calayhi salaam waxaana la hor keenay qoomkiisa hortiisii. nebi ibraahim waxa uu la weydiiyey, maxaad u burburisay sanamyada? waxaanu ugu jawaabay, anigu ma burburinin, waxaad weydiisaan sanamka weyn haddii uu awoodi leeyahay inuu hadlo. markay fahmeen inaanu sanamka hadlaynin ayay dib isugu noqdeen oo isku dhaheen, waxaad tihiin daalimiin. hase ahaatee waxay ku adkaysteen inay u gargaaraan sanamyadooda. waxayna go'aansadeen in la gubo nebi ibraahim. intaa kadib nebi ibraahim waa la xidhay waana la xabisay. qoomkiisii qof kasta oo ka mid ah waxa uu soo ururiyey xaabo iyo dhuxul si loo gubo nebi ibraahim oo ay ugu gargaaraan sanamyadoodii. waxay shideen dab aad u daran, xataa shimbirta dusha sare maraysa ay la soo dhacayso kulayl iyo hanfi aad u daran darteed. waxaa lagu tuuray nebi ibraahim dabkii. kadibna intuu jidka kusii jiray waxa uu la kulmay malakul jibriil oo weydiiyey inuu caawimo uga baahan yahay. laakiin nebi ibraahim waxa uu yidhi, adiga wax xaajo ah kaagama baahni ee eebbahay ayaan uga baahanahay inuu iga kor yeelo dhagarta gaalada. dabkii ayaa lagu tuuray nebi ibraahim. markaasaa eebbaha weyni waxa uu faray dabkii inay baraf noqoto oo nabadgeliso ibraahim. qulnaa yaa naaru kuni bardan wasalaaman calaa ibraahim. inkastoo ay ahayd daliil iyo astaan lagu garto eebbaha weyn, haddana qoomkiisii maysan rumaynin nebi ibraahim. waxaa rumeeyey oo keliya wiilkii uu adeerka u ahaa ee nebi luut iyo nebi ibraahim xaaskiisii saara.
arrintii nebi ibraahim way faaftay waxaana maqlay nin boqor ah oo la dhaho namruud kadibna waxa uu yeedhay nebi ibraahim waxaanu weydiiyey ibraahima waxaad sheeganaysaa inaad leedahay rabbi nebi ibraahim waxa ugu yidhi eebbahay waa ka waxna dila waana ka waxna nooleeya boqorkii isagoo kibir iyo isla weyni ka muuqata waxa uu yidhi aniguba waxna waan dilaa waxna waan nooleeyaa waxaana la sheegaa inuu xabsiga ka soo saaray 2 nin mid ka midna waa dilay kii kalena waa sii daayay nebi ibraahim markuu arkay inuu ninkani muran doon yahay ayuu ku yidhi aniga eebbahay wuxuu qorraxda ka soo saaraa maalin kasta dhanka bari waxaanu ka ridaa dhanka galbeed ee adigu bal hal maalin ka soo saar qorraxda dhanka galbeed halkaas baa lagaga roonaaday ninkii boqorka ahaa eebbana dhagartiisii ka badbaadiyey nebi ibraahim naxariisii nabadgelyo korkiisa ha ahaatee isaga iyo nebi luut iyo saare waxay u haajireen dhulka barakaysan ee falastiin waxay deegaan ka yeeshay falastiin hase ahaatee waxay u safreen isaga iyo xaaskiisu dhulka masar waqtigaa cid kale oo muslim ahayd maysan jirin dhulkaas marka laga reebo nebi ibraahim iyo xaaskiisii saara nebi ibraahim iyo saare naxariisii nabadgelyo korkooda ha ahaatee waxay galeen masar kadibna waxaa loo sheegay in boqorka ka taliya masar uu yahay nin dadka dulmiya qafaashana haweenka kadibna ku xadgudba ciidamadii boqorka ayaa haleelay nebi ibraahim iyo xaaskiisii kadibna waxay weydiiyeen ruuxa dumarka ah ee la socota waxaan ugu jawaabay waa walaashay isagoo uga jeeday inay tahay walaashiisii diinta islaamka boqorkii ayaa loo warceliyey hase ahaatee waxa uu amray ciidankii inay saara hor keenaan kadibna waa la soo qabtay oo waa la hor keenay boqorkii markaas waxa uu damcay inuu ku xadgudbo boqorku saara hase ahaatee saari waxay bariday oo kaalmo weydiisatay eebbaheed eebbana waa ka ajiibay oo ninkii boqorka ahaa waxaa asiibay xanuun daran ama faalig uu isla qaadi kari waayey boqorkii waxa uu weydiistay oo ka dalbaday saara inay eebbaheed barido oo uu ka dulqaado xanuunka kusoo habsaday waxaanu u ballan qaaday inaanu ku xadgudbaynin saare waxay bilowday inay eebba barido eebbana waa ka dulqaaday xanuunkii hase ahaatee ninkii boqorka ahaa waa ballan jebiyey oo haddana wuxuu isku dayay inuu ku xadgudbo haddana mar labaad ayaa xanuunkii ku dhacay haddana mar saddexaad buu ballan jebiyey calaa kulli xaal markii ugu dambeysay boqorkii waxa uu yidhi intuu ciidamadiisii la hadlay ayuu yidhi iga saaratan waa shaydaamada kadibna waa laga saaray waxaanu boqorkaasi siiyey saara gabadh jaariyad u ahayd boqorka oo u shaqaynaysay saara naxariisii nabadgelyo korkeeda ha ahaatee waxay u timid saygeedii nebi ibraahim calayhi salaam waxayna ku tidhi eebbaha weyn ayaa iga badbaadiyey ninkii daalimka ahaa waxaana laysoo raaciyey haajara nebi ibraahim iyo xaaskiisii waxay ku laabteen dhulka barakaysan ee falastiin kadibna saara waxay aragtay in saygeeda nebi ibraahim calayhi salaam ay daadiisu weynaatay wax ubad ahna uusan lahayn markaas waxay kula talisay inuu guursado haajara waxaana laga yaabaa in eebbaha weyni uu ubad ka siiyo nebi ibraahim waxa uu guursaday haajara waxayna u dhashay wiil yar waa nebi ismaaciil calayhi salaam markaas bay hinaastay saara sidaa aawadeed buu eebba waxa uu faray nebi ibraahim calayhi salaam inuu kala raro labadiisa xaas oo uu safro dhul lama degaan ah kuna taalla buuro dhexdood oo beer iyo baad toona lahayn oo la geeyo xaaskiisii haajara iyo wiilkiisii ismaaciil nebi ibraahim waa uu soo kaxeeyey reerkiisii waxaanu dejiyey meeshaas lama deegaanka ah cidna may deganin waqtigaa meesha sidoo kale ceel biyo ahna kamuusan qodnayn
intuu reerkiisii dhigay ayuu ka jeestay waana iska tegay. haajara ayaa ka daba oroday iyadoo weydiinaysa xaggay nagaga tegaysaa ibraahimow, ma cidladan aan cidi lama degaanka ahaan cidba deganayn? nebi ibraahim wax jawaab ah ma uusan siinin. markaas bay haajara tidhi, ma eebbahaa ayaa ku faray oo ku amray arrintan? nebi ibraahim waxa uu ku yidhi, eebbahay baa i faray sidan tan. kadibna waa iska dhaqaaji. haajara naxariistii nabadgelyo korkeeda ha ahaatee waxay tidhi, haddaba eebbahay nama dayacayo. dhulka kan lama degaanka ahi waa magaalada maka oo wakhtiga ahayd dhul qallafsan oo aan beer iyo baad toona lahayn, cidina ku noolayn. nebi ibraahim oo saaran buur dusheed ayaa eebbe ka baryay ducada tan oo eebbe inooga warramayo qur-aankiisa. ويقول الحق سبحانه وتعالى ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. أبو waxaan dejiyey carruurtaydii iyo ehelkaygii waadi tog aan beer lahayn oo ah beydkaaga sharafta leh agtiisa, ee eebbow ka yeel kuwo salaada ooga, quluubtooduna dadka mid u iilata xaggooda, kuna arsaaq midho iyo cunto waxay mudan yihiin inay kuu shukri naqaane. markuu nebi ibraahim ka tegay haajara iyo ubadkiisi iyo wiilkiisii ismaaciil, waxaa ku dhacay haajara iyo wiilkeedii ismaaciil in saadkii iyo cuntadii iyo biyihiiba ka dhammaadaan. kadibna ilmihii yaraa ismaaciil waa ooyey gaajo aawadeed, naaskiina waa guray. markaas bay haajara fuushay buur sare, buurta waxaa la dhahaa safaa. kadibna waxay dalbatay caawimo, hase ahaatee cidna maysan ajiibin, sababtoo ah meeshu waa dhul lama degaan ah, cidna ma degana. haddana waxay u orotay dhanka kale oo buur kale ah, waa buurta marwa. sidoo kale cidna way soo ajiibi weyday. haajara waxay dhex orotay labada buurood dhexdooda, waa safa iyo marwe 7 jeer. sidaa aawadeed ayaa xajka marka la xajayo waxaa la dawaafa labada buurood ee safa iyo marwe dhexdooda, iyadoo la xusayo dhacdo weyn oo taariikhi ah oo diinta islaamka ku weyn. markay cidna weyday ayay waxay aragtay hadh dul taagan wiilkeedii yaraa. cunugii yaraana wuu ooyayo. markaas bay ku orotay xaggiisii iyadoo isleh cadowga ka difaac wiilkaaga. hase ahaatee cidda dul taagneyd waxay ahayd malakul jibriil calayhi salaam ayaa dhulka dilaaciyey, waxaana kasoo burqaday biyo. haajara biyihii ayay waraabisay cunugeedii ismaaciil, iyaduna way ka cabtay. kadibna ishii ayay aastay. haddii aanay aasi lahayn waxay noqon lahayd ishaasi webi, waa sida rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu ina leeyahay. muddo kadib waxaa soo maray dhulkii lama degaanka ahaa qabiil carab ah oo ka mid ah safarka ka yimaada dhulka shaam. qabiilkaasi waa qabiilka jurxum, waxayna la degeen nebi ismaaciil iyo hooyadii haajara, iyaga oo biyihii ka dhaansaday kana cabbay. kadibna maadaama ay biyihii la siiyey oo la waraabiyey, ayaguna waxa ay ballan qaadeen in cuntadooda ay siin doonaan haajara iyo wiilkeeda ismaaciil.
nebi ibraahim calayhi salaam muddo kadib waxa uu damcay inuu soo booqdo reerkiisii iyo wiilkiisii ismaaciil ee magaalada maka. kadibna waxa uu riyo ku arkay asaga oo gowracaya ismaaciil. nebi ibraahim waxa uu ku yidhi wiilkiisii ismaaciil markuu yimi, wiilkaygow, waxaa lay faray inaan ku gowraco ee sidaad u aragtaa? wiilkii isagoo dhirin ayuu ugu jawaabay, aabbow, samee wixii lagu faray, waxaad heli agtayda kuwa sabre ah. nebi ibraahim oo da'diisu weyn tahay, sidoo kalena ubad kale aan lahayn, ayaa eebbe ku imtixaamay imtixaan aada u adag oo ay adag tahay in la baasgareeyo. nebi ibraahim calayhi salaam waxa uu dhulka dhigay wiilkiisii si uu mindida u mariyo. kadibna waxa uu janjeedhiyey dhabarka si uu qadaadka uga gowraco. markuu mindida mariyey ay mindidii goyn weyday. markaas baa wiilkii yaraa yidhi, aabbow, wax naxariis ha muujinin ee mindida ku jar, sababtoo ah waa amarkii eebbe. markay mindidii goyn weyday ayaa nebi ibraahim samada looga dhawaaqay, waxaanu maqlay cod leh, ibraahimow, waad ku guulaysatay imtixaankii. waxaana loo hibeeyey wan weyn oo la gowracay ismaaciil beddelkiis. sidaas baana eebbe haweyne ku kor yeelay una badbaadiyey wiilkii yaraa ee nebi ismaaciil calayhi salaam. nebi ibraahim calayhi salaam waxa uu ku noqday dhulka falastiin. sidee la ogyahay, nebi ibraahim waxuu ahaa ruux aada u jecel wax soorka iyo martiqaadka. maalin maalmaha ka mid ah ayaa waxa uu arkay 3 nin oo ku cusub magaalada, wax safar ahina aanu ka muuqan. markaasuu damcay inuu marti qaado. isla markiiba waxa uu gowracay sac, waana kariyey cuntadii, waana diyaariyey. kadibna waa soo qaaday oo hordhigay. hase ahaatee 3dii nin cuntadii maysan cunin ee gacmihii ayay ka laabteen. markaasuu nebi ibraahim calayhi salaam uu dareemay cabsi. kadib waxay ku dhaheen, ha cabsanin, waxaan annaga nahay 3 malag oo eebba ayaa noo kaa soo diray. waxayna kala ahaayeen malakul jibriil calayhi salaam, mikaa'iil calayhi salaam iyo israafiil calayhi salaam. waxay ku dhaheen, waxaanu soconnaa qoomkii nebi luud oo la halaagayo, waxaana asiibaya cadhadii eebbe, xumaantii iyo gaalnimadii ay samayn jireen awgeed. saara oo maqlaysay ayaa qososhay ayada oo ku faraxsan gaaladii qoomkii nebi luud ee la cadaabayo oo cadhadii eebbe ay ku dhacayso, oo dhib aada u weyn u geystay nebi luud. malaa'igtiina markay maqashay codkii saara ayay ugu bushaareeyeen inay wiil dhalayso. wiilkaasi waa isxaaq, sidoo kalena ay arki doonto wiilka uu isxaaq dhali doono ee yacquub. labaduba waa nebiyo calayhim assalaam. saara waxay tidhi, waa la yaabe, miyaan dhalyaanoo cajuus ah oo da'daydu ay weynaatay, ninkayguna uu yahay oday weyn? arrintaasi waa arrin la yaab leh. waxayna malaa'igtii dhaheen, ma waxaad la yaabaysaa amarka eebbe naxariistiisa iyo barakadiisa korkiina ha ahaatee. markay arrintii kala degtay ayaa nebi ibraahim guda galay inuu kala doodo malaa'igtii qoomkii nebi luud. hase ahaatee waxay dhaheen malaa'igtii, tani waa amarkii eebbe ee ka leexo ibraahimow. nebi ibraahim waxa uu tegey oo ku noqday si uu soo booqdo magaalada maka. waxaana uu tegay wiilkiisii ismaaciil. kadibna waxa uu ku yidhi wiilkiisii, eebbe ayaa i faray inaan dhiso beytkaasi waa masjidka xaramka iyo kacbadii. wiilkii waa soo dhaweeyey, gacmo furanna waa ku soo dhaweeyey qalbi furan. waxayna guda galeen inay dhisaan kacbada ayagoo ku bilaabaya
inay dhigaan aasaaska iyo seeska. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. gurigii ama beydkii ugu horreeyey ee loo dejiyey ee loo dhisay dadka waa kan ku yaala magaalada Maka, waana barakaysan yahay, waana hanuunka caalamka. kadib waa la dhisay gurigii, kacbadiina way dhiseen Ibraahim iyo Ismaaciilba, balse waxaa harsanaa hal dhagax oo keliya oo ka dhimay rukun ku yaala kacbada. kadib waxaa soo degay malakul Jibriil oo siiyey dhagaxa loo yaqaano xajarul aswadka. waxaana la sheegaa inuu midabkiisu ahaa midab cadaan ah, balse dembiyada dadka ibnu aadamku ay madoobeeyeen. nebi Ibraahim iyo Ismaaciil naxariistii nabadgelyo korkooda ha ahaatee waxay eebbe ka baryayeen ducadatan uu eebbe kaga warramayo qur-aankiisa fi suurati baqara. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. حسوس النبي محمد markuu kor yeelay nebi Ibraahim tiirarka kacbada isaga iyo nebi Ismaaciil ayagoo leh eebbow naga aqbal, adaa waxna maqla waxna ogi, eebbow naga yeel kuwa kuu hoggaansama, ubadkayagana ka yeel ummad kuu hoggaansanaata, nana tus camalkanaga xajka, nagana toobad aqbal, adaa toobad aqbal badane. eebbow u soo bixi rasuul ka mid ah oo ku akhriya aayaadkaaga, barana kitaabka qur-aanka ah iyo xikmadda iyo sunnada nebiga, oo nadiifinaya ayaga. adigaa ah casiizun xakiim, adkaade falsamo badane. dhismaha beydka xaramka kadib ayaa eebbaha weyni faray nebi Ibraahim inuu ogeysiiyo dadka xajka iyo in eebbaha weyni uu ku waajib yeelay dadka muslimiinta ah inay xajaan. nebi Ibraahim waxuu eebbihii weydiiyey sida uu ogeysiinayo dadka. markaas eebbe waxa uu ku yidhi, adigu ku dhawaaq, annaga ayaa gaadhsiinaynay. nebi Ibraahim waxuu fuulay buur isagoo ku dhawaaqaya cod sare oo dhahaya, dadow eebbihiin wuxuu idinku waajib yeelay xajka ee soo siyaarta oo ku xaja beydka eebbe. sida laga soo warinayo ibnu Cabbaas, ilaahay naxariistii janno ha ka waraabiye, raallina ha ka noqdee, waxa uu yidhi eebbe waxa uu maqashiyey eedaankiisii iyo ogeysiintii nebi Ibraahim dhammaan dadkii wakhtigaa noolaa iyo sidoo kale malaa'igtii samada joogtay. ogeysiintii nebi Ibraahim xata al'aana waa mid la maqlayo, camalkii uu berigaa qabtana xata al'aan dadka muslimiinta ahi way samaynayaan. eebbana waxa uu dhisay beyd kale oo ku yaala samada oo la dhaho beyt almacmuur, oo 70,000 oo malag ay ku tukadaan maalin kasta kumana soo noqdaan. nebi Ibraahim naxariistii nabadgelyo korkiisa ahaatee waxa uu iskaga kala gooshayey magaalada Maka iyo dhulka barakaysan ee Falastiin, sababtoo ah waxaa deganaa labadiisii reer ee Haajara iyo wiilkiisii Ismaaciil oo Maka jooga, iyo Saara iyo wiilkeedii Isxaaq oo iyaguna degan Falastiin. maalin maalmaha ka mid ah ayaa nebi Ibraahim waxa uu eebbe weydiiyey inuu tuso qaabka uu abuuro
ruux dhintay ama shay dhintay oo baadiyoobay. eebbe koraahaye waxa uu weydiiyey ibraahim, oo miyaanad rumaysnayn inuu eebbaha weyne awood u leeyahay inuu soo noolayn karo ruux dhintay? nebi ibraahim waxa uu yidhi, eebbe waan rumaysnahay, ee waxaan rabaa in qalbigu ii dego, iimaankayguna sare u kaco. eebbe waxa uu yidhi, waxaad soo qaadaa 4 shimbirood, kadibna gowrac oo isku dhex dar xubnaha iyo baalashooda oo isku qas, kadibna saar buur dusheed oo u yeedh, way ku iman doonaan. nebi ibraahim waxa uu sameeyey sidii la faray, kadibna waa u yeedhay shimbirihii oo way u yimaadeen ayagoo duulay. waxaana uu eebbe tusay mucjiso iyo mid ka mid ah awoodaha waaweyn ee eebbe. nebi ismaaciil calayhi salaam waxuu ka guursaday qabiilkii carabta ahaa ee la degay, waa qabiilka Jurxume. kadibna waxau bartay luuqadii carabiga, waxaana la dhahaa inuu nebi ismaaciil calayhi salaam uu yahay ruuxii ugu horreeyey ee ku hadla luuqadda fasxada ee carabiga, iyo weliba inuu yahay ruuxii ugu horreeyey ee fuulo fardaha. muddo kadib ayaa nebi ibraahim soo booqday wiilkiisii ismaaciil. hase ahaatee ma aysan ishelin isaga iyo ismaaciil, ee waxau la kulmay nebi ismaaciil xaaskiisii, waxaanu weydiiyey xaaladooda. waxay ku tidhi, xaaladayadu waa mid aada u xun. waxayna bilowday inay ka cabato saygeedii, waxayna wax ka sheegtay oo arrimo laga xumaada ka sheegtay nebi ismaaciil iyo reerkiisii. nebi ibraahim calayhi salaam waxa uu ku yidhi, markuu ku yimaado ismaaciil, salaaniga gaadhsii, waxaanad ku tidhaahdaa kaabadda guriga bedel. markuu nebi ismaaciil calayhi salaam gurigiisii yimi, ayay xaaskiisii u warrantay, waxayna u sheegtay in oday uu u yimi, uuna salaamayey oo salaan kusoo gaadhsiinayay, sidoo kalena uu soo faray fariin ah in uu kaabadda guriga bedelo. nebi ismaaciil calayhi salaam waxa uu fahmay inuu odaygaasi ahaa aabbihiis ibraahim calayhi salaam, uuna farayo in uu xaaskiisa furo. kadibna waa furay xaaskiisii. muddo kadib ayaa nebi ibraahim haddana waxau soo booqday magaalada maka. mana uusan helin nebi ismaaciil, laakiin wuxuu la kulmay nebi ismaaciil xaaskiisii. kadibna waa waraystay, waxayna ku tidhi, xaaladaydu aad bay u fiican tahay, warsanna way sheegtay. kadibna nebi ibraahim waxau ku yidhi, ismaaciil salaaniga gaadhsii, waxaanad ku tidhaahdaa kaabadda gurigaaga adkee. nebi ismaaciil calayhi salaam markuu gurigiisii yimi, ayay xaaskiisii u sheegtay in nin wanaagsan u yimi oo oday ah, oo ay cibaado iyo alla ka cabsi u ka muuqdo, uuna salaan soo gaadhsiiyey. kadibna uu faray fariinta ah inuu kaabadda gurigiisa ilaaliyo. nebi ismaaciil calayhi salaam waxa uu fahmay inuu ahaa aabbihii ibraahim, uuna farayey inuu xaaskiisa ilaaliyo iyo la joogooda. dhanka kale haddii aynu eegno, waxa deganaa falastiin nebi isxaaq iyo saara oo ahayd hooyadii. kadib nebi isxaaq markii uu weynaaday, waxa uu guursaday gabadh, waxaana loo dhalay wiil. 2 wiil oo mataana ah ayaa loo dhalay nebi isxaaq. 2da wiil waxay kala yihiin ciis iyo yacquub. ciis waxa weeye aabbaha romaniska, halka yacquub uu ka yahay aabbaha reer bani israa'iil. israa'iilna waa naanays ama magaca kale uu leeyahay nebi yacquub calayhi salaam. sidii lasoo wariyo, waxaa la sheegaa in khilaaf ka dhex dhacay 2dii wiil ee walaalaha ahaa ee uu dhalay nebi isxaaq. kadibna yacquub ayay hooyadii u dirtay abtigii oo la dhaho laabaan. nebi yacquub naxariisii nabadgelyo korkiisa ahaatee waxa uu la joogay abtigii muddo aada u dheer. kadibna waa u shaqeeyey, waxaanu ka guursaday gabar uu dhalay abtigii oo la dhaho liya.
waxayna uu dhashay 12 wiil. muddo kadib ayuu haddana waxa uu aroostay oo la aqal galay gabadh kale oo uu dhalay abtigii oo la dhaho Raaxiil. waqtigaa way bannaanayd in 2 gabdhood oo walaala ah la jamciyo ama ay la wada guursado, diintooda way ku bannaanayd. laakiin diinta islaamka ah kuma bannaana in la jamciyo 2 ruux oo dumar ah oo walaala ah. Raaxaan sidoo kale waxa iyaduna dhashay wiil yar oo aad u qurux badan, waa Yuusuf iyo walaalkiisii kale ee Benyamin. Nabi Yacquub waxa uu ku soo laabtay magaalada Orshalim ama dhulka Falastiin ee ay deganayeen, gaar ahaan magaalada Orshalim oo loo yaqaano magaalada Qudus. waxaanu dhisay masaajidka Baytul Maqdeska. muddo kadib Nabi Ibraahim waxa ku soo xaadirtay geeridii, kadibna waxa uu u dardaarmay ubadkiisii iyo Nabi Yacquubba. waxaanu ku yidhi, carruurtaydow, ubadkaygow, eebba waxa uu idiin doortay diinta ee ha dhimanina idinkoon muslim ahayn mooye. sidaas baanu ku geeriyooday Nabi Ibraahim, naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee. intaas waxaan kusoo guubaynaa qisadii Nabi Ibraahim calayhi salaam oo koobnayd. inta aynu mar kale ku kulmi doono qisooyinka ambiyada waxaan idinkaga tegaynaa. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.